caafimaadka doona daaweeya cudurku dabargooya cudurkaani danyarta u adeega 240 milyan ayaa lagu qiyaasay dadka qaba xanuunka hepatitis B sidoo kalena xanuunka hepatitis C virus waxaa dunida la nool in ka badan 150 milyan sidoo kale la noolaanshaha xanuunadan iyo daaweyntooda ayaa mid faraq weyn u dhaxeeyo hepatitis C virus waa nooca keena xanuunka sida waana mid saameyntiisa iyo dhibaatadiisu ay gaari karto in 85% uu galaafto dadka uu ku dhaco fayraska loo yaqaano hepatitis C virus موضوعا oo mid aan filayo in badan oo idin kamid yahay aad xiisayn doontaan isla markaasina aad aqoon cilmi ahaan iyo caafimaad ahaanba aad uga faa'iideysan doontaan waa xanuunka Jones cadka isla qaybtiisa loo yaqaano sida xanuunadaasi oo in badan oo idin kamid yahay cabasho ka muujiyeen wax daawadayaal halkan aan hubeenkan caawa idin ku soo gudbin doonaa aniga iyo Dr. Bashiir bal hadda xanuunkan iyo sida loo furdamiyo aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdi hepatitis C wuxuu B kaga duwan yahay hepatitis C waxa keena virus ka duwan hepatitis B oo isaga loo yaqaano hepatitis C virus cudur dhaliyahaas ayaa keena run ahaantiina waxay ku kala duwan yihiin oo kale adduunka 240 milyan ayaa xanuunkan hepatitis B ga qaba halka bilaa 150 milyan ay hepatitis C ga qabaan marka hepatitis C ga ayaa labada yar xanuunkan hepatitis C gu sida uu ku fido uu ka duwan yahay inta badan oo aad buu uga duwan yahay inkastoo isku dhowdhowyiin haddana waxa u badan oo ku fidaa waa waxa loo yaqaano blood and blood products waa dhiigga iyo waxyaabaha dhiigga soo raaca xanuunkan hepatitis C ga had iyo jeer 90% waxa la yiraahdaa qof dhiig aan hagaagsaneyn oo aan caafimaad qabin oo hepatitis C qaba haddii lagu shubo 90% uu qaadaya baa la yiraahdaa waxyaabaha kale ee uu ku fidi karo waxa kamid ah qofka oo lagu mido irbad qof kale oo xanuunka qaba lagu mido qof caafimaad qaba qalab aan nadiif ahayn oo la adeegsado waqtiyada dadka caafimaadka gaar ahaan dadka ilkaha saaraya dadka wax qalaya dadka gudaya haddii xanuunkaas qof hore qabo oo qof qalab aan nadiif ahayn lagu adeegsado xanuunka hepatitis C uu gudbaya waxyaabaha iyagu si yar waxa kamid ah galmada iyo hooyadu in ilmaha u gudbin karto oo si ka yar ay u gudbin karto sidii hepatitis B ga waxaase xanuunkan lagaga badbaadi karaa waxa uu leeyahay daawo haddii si joogto ah loola xiriiro khubarada caafimaad ee aqoonta u leh daaweynta xanuunkan halka xanuunka hepatitis B ama Jones cadka qaybtiisa B-du uu leeyahay ka hortag laakiinse aanu lahayn daawo waxaana xanuunka B-du uu yahay mid 90% cidda uu haleelaa ay la noolaan karto iyadoo 10% ay geli karto xaaladda ka kan ee dhimashada iyo inuu beerku shaqada joojiyo faraqa u dhaxeeya labadan xanuun ayaa ah hepatitis B-gu waxa uu leeyahay ka hortag talaal halka uu xanuunka hepatitis C-guna uu leeyahay daawo maxay yihiin talooyinka dhabta ah ee loo hayo daaweyntooda iyo talaalkooda maxay yihiin siyaabaha dhabta ah ee loo qaadi karo fayrasyadan beerka haleela ee saameyntooda iyo dhibaatadooduba ay kala duwan tahay maxay tahay talooyinka dhabta ah ee la gudboon midkii ayaa saameyn badan baa la oran karaa amaba dhibaato badan oo dhaawaciisa iyo dhibaatadiisa iyo waxyeeladiisa iyo dhimashadiisuba kee ayay badan tahay waa su'aal aad u wanaagsan xanuunka hepatitis C gu uu ka khatar badan yahay xanuunka hepatitis B ga sababahan awgood xanuunka hepatitis C gu ma laha tallaal lagaga hortago sidaa darteed uu ka khatar badnaanayaa xanuunka hepatitis B ga oo isagu tallaal leh xanuunka hepatitis C ga haddii uu kugu dhaco waxaanu soo sheegnay in hepatitis B gu ay dadku isu bedelaan 10% ay chronic noqdaan ama ay muddo sidaan xanuunka chronic markay noqdaan uu ku raagana beerka 10% kaasi ay noqdaan qaar sidayaal ah oo kala baxaan iyo qaar oo xanuunkaasi marka dambe cancer isu bedelo xanuunka hepatitis C gu wuxuu kaga duwan yahay kaga khatar badan yahay 15% ilaa 45% qofku uu ka bogsan karaa 85% in ku badan ama 85% wuxuu isu bedeli karaa xaalad loo yaqaano chronic ama soo jireen marka sida uu kaga khatarta badan yahay waxa weeyaan 85% kaas ayaa kala baxaya 30% in ku dhow waxay isu bedelaan baa la yiraahdaa cirrhosis waxa loo yaqaan ama beerkoo shaqadiisa gabayo joojinaya 1% ilaa 5 waxay noqdaan cancer buu isu bedel doctor xanuunkan hepatitis B ga la yiraahdo iyo hepatitis C gi mar haddii aad sheegtay inay kala saameyn badan oo kala dhib badan yihiin astaamihii lagu garan karay may kala duwan yihiin mise waa isku astaamoon maxaa lagu kala garan karaa labadii xanuun waxa la markuu qofka ku dhaco lama garto marka hore asymptomatic baa la yiraahdaa halka hepatitis B ga markaynu soo sheegnay
calaamado yararo markuu degdega jirka usoo galo lagu garanaya sida hargab iyo calool xanuun iyo inuu qofku mataga iyo laalugo iyo jonis iyo laakiin hepatitis C-ga waxaa la idhaahaa marka hore jirka soo galayo marmarka qaar inta badan waa asymptomatic calaamad ba laguma arko marka dambe qofka laga eego ama uu isbedelaaba inta badan la arkaa marka dambe waxa soo baxda astaamihiisu waxay soo baxaan marka uu isu bedelo chronic ee in badan uu raago ee uu beerka ku raago